haddii riyadaada hore loo aqbalo then it's not big enough. Salaamu calaykum. Waxaan ahay Maxamed Cumar. Waxaan idinkala soo hadlayaa Emirates Love Somalis. Waxaan ka soo bilaabay safarkayga meel bannaan oo waxba la'aan ah. Connection ma lahayn, xidhiidho macnale ma lahayn, roob ma haysan, lacagna iskaba dhaaf. Riyadayduna waxay noqotay wax cid kasta ku qoslo oo lala yaabo. Waayo waxaan ku riyoonayay mujtamacayga dhexdiisa kama ahayn wax la yaqaan oo caanka ah. Inaan noqdo cod u hadla rajada haddii riyadaada hore loo aqbalo then it's not big enough. Waan iska xamilay diidmo kasta, kumaadsi kasta, qosol kasta iyo aqbal la'aan kasta. Waxaanan ka dhigtay shidaal aan ku dhiso riyadayda. I fought every odd. Waan ku dadaalay, aad baan wax uga bartay, waxaan diiday inaan isdhiibo. Intaa kadib ayar ayaa albaabada iska fureen. Ka bilow fasal, hoolal waaweyn, stadiums iyo masraxyada caalamka ugu waaweyn. Waxaan ka bilaabay in laygu qoslo, waxaan gaarsiiyey in ticket loo goosto dhagaysigayga. Waxaan ka hadlay masraxyada ugu waaweyn adduunka. World Economic Forum, TED Talk, TEDx. Waxaan tababaray top CEOs, executives iyo hogaamiyayaal bulsho. Waxaan la taliyay hay'ado caalami ah ka mid tahay UN. Xikmadu waa tan. Dunidu way kugu dhaga adeegyo hore ku dhageysan mayso ilaa ay ku adkaato in la iska kaayna tira. Waxaan dhistay xirfad, waxaan dhistay sumcad. Xirfadaydiina waxaan ka dhaliyay dakhli. Wixii aan jeclaayay passion-kayga ahaa baan u bedelay profit. Waxaan abuuray barnaamijyo saameeyay oo bedelay nolosha malaayiin qof. Ha sugin permission, ha sugin sacab. Halka aad joogto wax ka bilow, waxa aad hayso intuu doono ha leekaade wax ku bilow. Adduunyadii kaa shakiday ee ku saluugtay ayaa kuu istaagi doonta oo kuu sacabin doonta.